رئيس الوزراء كحوينكي دكا الصومالية دستور كقطعت لبجر مرنا يسوي حدبان مرنا يسوي دبتي برام رسر كدلك يا مان وحو soo saaray warqad lagu taageerayo Somaliland oo dastuurkaas isaga uu ku dhaartay aan aqoonsanayn laakiin dowladda shaqadii kama fadhiisaninkii oo waa kana waartaan oo galiif wasiirada fadhiya isaga haduu rabo shir gudoominahay marka sida saxda ah aniga waxaan u maleynaa kale oo haddaan ahaalahay wasiirka matala خيرها هذا دبعته لو هاي أنا ما أقبل لهين إنه إيش القدومية صح رجال ما أقصنا لهين اللي وحي قبيلة وقت بقى هذا صلاة تي مدحوينها هذا صلاة تبارك مدحوينه حلا مركه رأد أجور وريجي مركي ضمبه سوء إنما وكحلي لكن مدحوينه وحلا جرب أضي إنما كذي ما حنا فرق ما شاء الله دستور وحياه مدحوينها الصومالي وأركيا صبح كستا قف الصوماليات ويجي جمهور الصوماليات يا علنك الصوماليات استووا الدليا علنك يا دستور كان الصومالي واجب كما صار لكن قف كل داري انه دفاع عن مدحوينه waxaan u maleynaa marka de madaxweynaha waa artay hore madaxweynaha Soomaaliyeed ay yiri su'aashan aniga kama jawaabi karo marka madaxweynaha sida u maleysaan xaalada ka duwanaa hor yaalla intaasaan ku soo koobi lahaa waa waajib laakiin wax inta laga qarsan karo ama dhaxdhaxaad laga noqon karo ama dad looga xishoo karo ama xukunka iyo kursiga ay ku fadhiso loo macaansan karo maaha marka ay timaado qof Soomaaliyeed oo calankii Soomaaliyeed wata in la dilo adiga inaad iska daawato ma hadda madaxweynaha taas waa meelahaas waa laga yaabaa aad ma santahay gudoomiye dhanka kale waxaa jirto Puntland maamul goboleedka Puntland dastuurkooda waxa ku qoran sool iyo sanaag iyo cayn inay ka mid tahay sidoo kale xildhibaano gaaraya ilaa 28 aan maleynaa nambarkooda inuu yahay baa waxay ka mid yihiin maamulka Puntland ee laga soo doorto ka soo gala deegaankooda uu yahay ugu fadhiyo matalaad ahaan ugu fadhiyo saddexdaas gobol sidoo kale markii la dhaho xildhibaanada federaalka ah representatives-kooda waxaa lagu soo doortaa Puntland baa lagu soo doortaa ee deegaanadaas ka soo gala Puntland maadaama marka sharciyan in the book ay u tahay maxaa la dhahaa deegaanadaasi ayagu inay hoos yimaadaan markii laga fiiriyo dastuurkooda Puntland marka laga fiiriyo qaabka doorashooyinka ay u dhacayaan haddii ahaan lahayd mid federaal iyo mid state ba oo Puntland level maadaama ay yihiin dadkaanay dasaasa Puntland nahadertaan aysan markii dhibkan u yimid aysan awoodeedii gaarsiisnayn inay wax ka qabato maxaa diidaya in ay tiraahdo dastuurkan review ku sameynay SSC saddexdeeda gobol waan ka saarnay Puntland inay ahaadaan si Soomaaliya federal system bay qaadatay hadii dadkan helayaan representation federal member state inay noqdaan annagu aanan caqabad ugu noqon oo ay sida ku sii daayaan mis leedahay caqabada ay dadkan u noqon la yihiin state ka tirsan state-da Puntland qayb bay ka tahay markii laga fiiriyo dhinacaas soo dhawo saadiyo waa mahadsan tahay su'aashu waa su'aal xogaa waa tar badan tahay laakiin Soomaaliya ama ha ahaado federaalka dheh ama state-ka dheh Soomaaliya sida dastuurka markasta ku qoran iyo sida saxda oo ay wax yihiin waa wax aad u kala duwan dastuurka hadda federaalka waxa ku qoran Hargeysa inuu madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne u yahay laakiin ficlan marka ay timaado iyo si practical marka u timaado adiga isagoo u simantihiin haddana u sinayna waxa arki lahayd talaabo isagoo qaada mar hore la arki lahaa Puntland waa sidaas oo kale Somaliland hadda waxa ku qoran sool iyo sanaag inuu lascaana inay ka tirsan tahay Somaliland Puntlandna waxa ku qoran inay ka tirsan tahay sool iyo sanaag inay Puntland yihiin laakiin labadaas waxa ay rabaan ay ku qortaan waxa ka muhiimsan dadka deegaanku waxa ay rabaan dadka deegaanku waxay leeyihiin dad geed dambeeda oo odayaala oo dheergarada oo la yaqaano
oo garaad jaamac waxaan u malaynaa inuu 8 oday inuu garaad yahay u malaynaa iyaga inta isku tagana waxay yiraahdeen inagu Soomaaliland ma nihi Puntland ma nihi waxaan nahay gobole SSC la yiraa waxaana hoos tagnaa dawladda federaalka Soomaaliya waxaas ma kama dambeeyo haddii aanay sidaas ahayn sida hadda dawladda federaalka aba aanay gurmad ugu dirin meeshaan dagaal ka socdo waajibkiisa raacaan u fulin yaa mar hore waxaa arki lahayd Puntland oo iyaduna gurmad u dirtay maalin kasta waxaa laga yaabaa dhowr bilood ka hor inaan arkay baabuur badan oo garow ka baxay meeshu dhul badanaa ilaa hadda ma aanay gaarin ya ilaa hadda ma aanay gaarin marka waxaan xasuustay gabadhii Jarmalka ka ahaan jirtay Chancellorka Mari Angel ayaa hadda ka hor waxay tiri islaamka Syria iyadoo Makka ay u dhowdahay ayay noo soo hijroodeen oo Jarmalka ay ugu yimaadeen marka SSC iyadoo ay u jirto meesha la yiraahdo si hadda adiga doodaada hadaan ku raaco garow ay u jirto 120 kilomitir ya adigii anigu haddaan u gurmanayna anagoo dalashay joogna marka haddii ay yihiin dad maamul ka tirsan mar hore arki lahayd baabuurtii ka baxday bilka hore ayadoo meeshaas gaartay dadkaas marka annaga waxaan u raacaynaa rabitaankooda waxayna rabaan inay maamul samaystaan ay u leeyihiin dowladda federaalkana hoos sidaasaan u qaadan karnaa aragtideeda علي ومعصن تهاي أنا لبس سؤالو السارم باوتا هدي بين هيو waxaan midda hore waan ku weydiinay waxa weeye dawladda federaalka habacsananta iyo fursadaha badan oo ay luminayso marka aad fiirisid oo hadda tan ugu horeyso kale inay u hanjabto oo meeshan 20 bil ku dhow dagaal baa ka socday duqeymo shacabka loo geysanayo oo hanti lagu burburinayo baa ka socota marka dawladda marka u fiirisid fursadihii maanta ma laha awood caadi oo military oo dawlad dhisan oo xoog badan Soomaaliya maaha waa wada ognahay laakiin political power bay haystaa oo siyaasadday ku xoog badan tahay marka fursadaha ay luminaysa marka aad u fiirisid ma isleedahay maamulka ama ha ahaato xukuumadda ama ha ahaato filadu iyo inta ka hooseysaba uma soo jeedaan ama aragti ahaan uma rabaan meesha inuu maamul ka soo baxo oo dheeri ah su'aasha labaad oo aan rabo inaan kugu daro waxay u dhacaysaa fursad intee la eg bay heli karaan qolyahan Somaliland haddii sidaan ay wax ku sii socdaan aragti ahaantaada soo dhow meesha dad igu soo celi meesha dad Somaliland ma fahmin hal mar igu soo celi haddii ay dagaalkan sii wadaan oo cid kala hadasha hadda reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo warqad maanta galabta soo baxday haddadan baa ugu dambeysay oo xabadda hal la joojiyay leeyihiin marka ayaga warkooda ilaa hadda wasxaafadeed waa soo dhaafilayay marka haddii sidaan ay wax ku sii socdaan fursad intee la eg baad isleedahay bay helaysaa Somaliland oo ay dagaalkeeda ay ku sii xalaashato niyo waa dhowr waxa hadda is saaray midda ay weydiisay horta midda koowaad dawladda Soomaaliya tabar hadda intii ay sheegtay ka badan in ay hadda laga sugayo ma qabo waa laga yaabaa in qaab anaga aan hadda u jeedino daha gadaashiisa inay dadaal ka wado laakiin so far hadda inta aan maqalnay sidii beesha caalamka kale luqadda ay ku hadli jirto dagaalka hal joojiyana la wada hadlo sidii luqadda caadiga ah international community hadda dawladda Soomaaliya ay ku hadashay waana sida aan sheegtay oo tabartaaba laga yaabaa hadda inay intaas tahay haddii loo cudur daari karo dawladda waxa la dhihi lahaa anigu waxaan dhihi lahaa cadow weyn oo niman alqaacido iyo al-shabaab la yiraahdo yaa hadda dawladdu ayadiyo cusub dagaalamaysa gobollo badan ay ka saartay awoodooda iskugu geysay oo runtii ay tahay in hadday ay tahay in loo cudur daaro aniga meelahaas ugu cudur daari lahaa laakiin dhanka kale markii la fiiriyo wiil iyo gabar iyo oday iyo hooyo subax kasta calankii Soomaaliyeed wata in la dilo ayadana dhinaca kale marka la fiiriyo runtii waa wax aan unacceptable ah oo aan la aqbali karin oo aan cudur daar loo sameey karin tala ahaan waxaa fiicnaan lahayd
haddii dowladduna ay aragto dadkan dad dastuurkii calankii lagu laynayo oo loo awood sheeganaya shacabka inay yihiin somalilandna dagaalkii weli ay wado madaxweynihii somaliland dee maalin kasta aad aragteen oo wararku mararka qaar haba isdhaafsanaadaan warar iska hor imaanaya ha ahaadaan laakiin ciidamo meesha uu kusoo daldalayo waxaa fiicnaan lahayd meeshaas in la geeyo amisom oo haddii laga fursan waayo haddiiba aanay ciidamada gorgor iyo wax aan la ogolayn oo nabadeyn in dad kale kala dhex dhigo aan la ogolayn waxaa fiicnaan lahayd aan isleeyahay dowladda ugu yaraan ciidamada midooda afrika hadda soomaaliya waxba kama hayaan mushaaray ayagoo jiifa qaataan kalluunna waa cunaan dagaalkiina soomaaliya ciidamo xoog lehay hadda yeelatay oo dagaalkas hadda maba ku jiraan ayagu marka dowladda tala ahaan waxaa fiicnaan lahayd meeshaas in la geeyo ciidan amisom ah ciidankaas somalilandna magaalada laga fogeeyo dhinacan kalena dee awal ayagu dagaalka ma bugdin awalba dad shacabahoo isdifaac ayay ahaadeen haddii ay ciidamo magaalada soo galay ayaga ruuxooda ay jiraanna oo qabaa'ilka meesha deganna ayagana in si un ciidan xoog lahoo muuqda haddii jiraan laga saaro laakiin anugu hadda sidaan qiyaasayo ciidan hadda oo sida somaliland kalaa meesha ma joogay dagaal muqaawamo ah oo dad isdifaacayo shacaba inay joogaan ay hadda saasay og tahay marka ciidankaas amisom in la geeyo ficnaan lahayd arrinta oo somaliland horta somaliland aniga waxaan u arkaa dagaalkan runtii siyaasad ahaan uma fiicnayn barkee 30 sano wixii lasoo umbeynayay hadda burburay dooda ugu weyn oo somaliland ay haysatay 30 sano lasoo dhaafay laba ama saddex dhahno waxaa ahaa waa nala gumaaday magaaladii yaa dowladdii canshuurta ka qaadaysay ay duqaysay dooda labaad waxay ahayd dadkeenna aayahooda inay ka tashadaan ha loo madax banneeyo nalama caburi karo annagaa tashanayna dadkeena indheegaraadka iyo siyaasiyiinteenna innagaa tashanayna innagaana ismaamulayna labadii qodobba hadda inay buranay muuqataa sababtoo ah dadkii bil hadda ka hor canshuurta laga qaadayay oo muxuu ahaa xarunta degmada iyo saldhigga iyo calankii somaliland oo ku buufsanaa isla ayagii way wax maanta la duqaynayo oo aragteen oo maalin kasta la soo gelinayo meelaha dadkii shacabkii oo lagu garaacayo sawaariikh iyo hub culus marka qodobka kale oo isagana doodii ka dhintana waa kii aan sheego ah yaana la qasbin ayahan aan ka tashano iyaduna waa dhimatay sababta dadkan waxay leeyihiin yaana la qasbin innaga ayahan aan ka tashano dadka halkan degan baan nahay dhulbaahanta iyo faaqshini baan nahay odayaashii reeraha halkan iskugu yimid oo 33 go'aanaan gaarnay inaan taladana gaarno marka waxaan u malaynaa runtii somaliland dagaalkan inuu sibiqsi ah ku gala waa laga yaabaa qaab hadda ay uga baxaanna ay laayihiin laakiin runtii doodii ugu weyneed iyo wixii 30 sano lasoo dhisayey yaa waxaan dhihi karaa 3 isbuuc gudahooda ku baaba'ay internationalka marka loo yimaado anigu kuma jiro niyo dadka inta badan internationalka wax ka suga international wax kasta ka dhaca 3 qodob wax la yiraahdo leeyahay xabada la joojiyo hala waa hadlo gargaarka hala ogolaado intaas ayaba dhaxan baa markii la yaabay waxay ku daraan baaritaan aan sameeynaa oo sida Soomaaliya qor adu baaritaan aan marnaba natiijadiisa la ogaanay dadka aan wax badan ka sugo ma qabo laakiin waxaan ku talin lahaa meeshaas ciidan amisom in la geeyo dadkaana la kala badbaadiyo dadkan muqaawamada iyo ciidankan magaalada kor fadhiya in la kala fogeeyo oo ciidanka magaalada laga saaro waa ka baxay ku socdo ها سؤال كلا ربعنا كعليو قدوم يراليجا هو وحوي سؤال بهالك إيجاسون نقونيسو أدمس مركات فيليسيد أما أميسوم أو هذا أدمس لو بدلي ووجه جسد هذا الصومالي كجاب خلاه كشفته ما تسلاعد هاي شلي صوماليا مركي أي بربر كجشي ودول النمذي أي ويدي أو هجامي كوحيد كدب مقاومة حمر كدلتي wixii admis bilowgeeda u ahaana ay Ethiopia ahayd inay xamar gasho oo gabadh fallow ay ka sameeyto ma isleedahay maanta hadii la soo celiyo arinka oo admis fursad kale laga siiyay gudaha Soomaaliya ma isleedahay fursad waxa halka ka soo bixi kara argagixiso lagu abuuro maadaama nidaamkan argagixisada uu shaqo abuur yahay runtii oo dadka aad ka xogogaalka ay ogyihiin mashruuc inuu yahay ما إسلامه مشروعي فرصة بوهلية أو دونك كوفريد هذا أرنكيزو جبا كسو مريو إسلامه هاي
maadaama admis iyo dee ajendaha mar walba soomaaliya aan danta u ahayn ay isdaba socdaan ama dadka soomaaliyeed danta aan ugu hayn meeshaana aysan hadda wax weyn aysan oolin oo aan ahayn in dadka lagu khasbo inay xabadda joojiyaan ayadoo awoodo kale oo la isticmaali karo oo cunuqabateen iyo waxyaabaha la midka ah mis leedahay marka haddii arrinka admis meesha soo galo hawl intaa ka badan baa deegaankaanu la kulmayaa oo hadda somaliland waad aragtaa saraakiishii dagaalka kula jiray qaybahoodii ayagoo leh waa argagixiso marka ma is leedahay arrimahani waday sii furayaan haddii admis hadda la keeno niyo waxaa jira wax xaq ah iyo waxaa kala jira wax xal ah in amisom oo hadda laga doodayo dalka ha laga saaro waa laga maarmay soomaaliya awooday yeelatay sharafteedii dib oola soo laabatay in hadda la geeyo oo aan idhaahdo waxaa roon in la geeyo wax qurux badanna maaha gobonnimadeennana uma fiicna xaqna maaha laakiin waxaa isleeyahay waa xal sababtaa u leeyahay waxa weeye meeshaan dadkii shacabka ahaa yaa la dhammaynayaa awood maamul yaa dhammaynaya sawaariikh baa lagu garaacayaa masaajid lama aadi karo iskuul lama aadi karo ganacsi lama aadi karo dadkiina dad hadda lama qooni karo waa ka wey hadda waa uma muuqdaan dad waxay u muuqdaan isdhaarsaday sidii uu sheegay muuse bixi somaliland dad isdhaarsaday oo nafta inay bixiyaan go'aansaday oo garaad kow horta waxaan jeclaan lahaa in la fahmo conceptiga guud oo qadiyadan asal waa qadiyad oo sharci iyo dastuurka ku salaysan oo dastuuri ah ma ahan qabaa'illa isdagaashan dad dhul isku haya iyo daaqsinna ma aha dagaal qabiilahoo laba reeroo ama saddex reeroo isdagaashanna ma aha intaasoo dhan maaha dagaalkan waa dagaal salka ku haya sharci iyo dastuur iyo tabashooyin dagaal salka ku haya weeye oo innaga dastuurkeena waxaa ku qoran midnimada dalka iyo maaragtay yani dastuurka si hadda noogu qoran marka dad kale oo walaalaheena oo soomaaliyeed yaa waxay muxuu ahaa yidhaahdeen innagu soomaaliya inaanu kala goynaanu go'aansanay oo aan somaliland la baxno dadka degan laascaano iyo cari caddeeyana waxay leeyihiin innagu ma rabna soomaaliya in la kala gooyo sida ku qoreed warqaddii odayadu soo saareen shirkoodii marka innaguna waxa hadda ma ahan arrintu dhexdhexaad laga noqon karana maaha wax inta reer la neceb yahay reer kale la jecel yahana ma aha haddii hargeysa maanta ay taagnaa lahayd positionka hadda ay taagan yihiin reer SSC-na ay taagnaa lahayeen positionka hadda ay taagan yihiin walaalahan somaliland waxaan u heelin lahayn walaalahan somaliland waxaanan maaragtay awoodda iyo taageerada iyo aqli iyo aqoon iyo maskax iyo energy intaaynan waxaan isugu geyn lahayn inaan difaacino dalka iyo midnimada oo aan SSC la dirirnaan isugu geyn lahayn hadda laka waa sidii dhinacii kale weeye niman waxaa isdagaashan oo muxuu ahaa dhahaya dalkii inaan go'naan rabnaa iyo niman dhahaya midnimadii dalka ayaan rabnaa halkaa iyada oo joogta arrintan arrin ay tahay soo bilaabatay 60kii yaa haddana qadiyadda maalinba mid soo bedelaysay ka soo bilow adigu 15 sano ka hor 10 sano ka hor kalshaala dagaal ka dhacay waa la ogaa dhibaatadii kalshaale ka dhacday dabadeedna dadkii kalshaale SSC markaas joogay xagaltoosii ninkii lahaa iyo raggaabaa ku jiray waatii ay nimankaa wax la qabsadeen waa la ogaa meeshii ku dhammaatay tii laascaana iyadana cali khaliif galayr isagoo dhahaya war dadka war ummadda war isagoo dhahaya waa la ogaayo dee waatii isagana tiisi ay u timid halka iyadoo taagan oo intaasoo tabashooyin ay iska jiraan yaa hadda meeshii waxaa yimid marka arrin amni dadkii deegaanka yaa subax kasta waxay maaragtay ku soo kacaan iyadoo la leeyahay hebel iyo hebelaayo allah u naxariisto xalaa la dilay kadib taas waxay keentay maamulkii guud inay yidhaahdaan dhibaatadan dadka wada waa dadka koonfur galbeed ka yimid ama koonfur marka sidii sacuudigo kale hala tarxiilo dad soomaaliyeed halaga tarxiilo deegaan soomaaliyeed arrintii halkaa waa ku joogsan weyse dilkii sidii u sii socday
hadduu sii socday meeshii waxaa timid amnigii maamulkii waa dayacay dadkii la tuhmayo aad idinku noo sheegtaan inayna dhibayaanna waa baxeen wixiina waa sii socdaan bal marka annagaa inay hebel iyo hebel isku naqaane isbaysana siyo naga baxa bal annagu marka amnigeenna aan suganno arrintaas waxaa ka yimid marka diidmo xoog leh dadka laascaana joogana qoryo ma aanay qaadan si nabada oo shacbiya oo yaa maaragtay dadkaas u mudaharaadeen dareenkoodana u muujiyeen iyagoo dhahaya amnigaan rabnaa annagaana rabna amnigeenna inaan suganno laakiin waxaa loogu jawaabay xabado markii loogu jawaabana intii hore laga cabanayay in ka badan yaa la dilay markii dambe hadda waxaa timid in dadka inta isku yimaado oo indheergaradkii iyo garaadadii isku yimaadaan oo ay shiraan iyagoo sidoo u midaysan oo hal mid aanu ka maqnayn sida la sheegayo taariikhda markii koowaad ee dadka deegaankaasi midoobay ay yidhaahdeen aayaheenaan u tashanaynaa midnimada dalkaanan rabnaa dowladda soomaaliyeed ee federaalka yaana inagu hoos tegaynaa intaas kuma aana ekaana waxay yidhahdeen dowladda soomaaliyeed maamul ha noo samayso waa meesha ugu dambeysay iyo dood oo maaragtay very legitimate argument la yimaadeen dadkaas tii waxay dhalisay caro iyo duqayn subax kasta markii la soo kaco dee sidaa aragteen dukaan ha dhihin dugsi quraan masaajid xarun caafimaad ilaa iyo maaragtay hay-adihii caafimaadka dadkii ka shaqeynaya isbitaalkii la dilay waa aragteen dhibaatada meesha ka dhacday marka sidaasaa waxay yihiin arrintu marka ma ahan dad in la jecel yahay dan lana neceb yahay maahane arrintu waa arrin ku salaysan qadiyadda waaye oo soomaali weyn iyo midnimada dalka taasna waa mid dastuuriyoo wax qofna markuu rabo qofku diidi karo markuu rabana uu qaadan kara ma aha si guud waxaan u malaynaa marka inay adigu intaas hadda aan sheegay yay maaragtay ku dhex wareegaysaa anagu marka waxaan qabaa in dadkaas walaalaheena ee soomaaliyeed haddii ay yidhaahdeen ammaankeenna sida hargeysa hadda ay u rabto tusaale ahaan inay iyadu hargeysa u tashato aayaheeda oo ay leeyihiin muqdisho waxaan rabnaa inaan ka madax bannaanaano inala qasbana ma rabno oo sida madaxweynaha soomaaliya maalid uu sheegaya aan xataa soomaali diyaar u ahayn inay qasabto ayaana iyaduna sidaas si lamida diyaar u ahayn inay qasbaan dadka jooga SSC marka waa meelahaasaan u malaynaya waxaan qabaa marka dadkan soomaaliyeed ee walaalaheena ee gobollada SSC degan in faragelinta laga daayo oo somaliland iyo puntland iyo maamul kale hadduu yahaba faragelinta laga daayo oo iyaga space la siiyo oo taladii odayadoodu soo saareen iyo guddiyadii shaqaynaya ay soo saareen iyo odayaashii 33 oday ahaa ee ka koobnaa dhulbaanti iyo faqashini dadkaas inay ayahooda ka tashadaan in loo daayo loo madax banneeyo yaa intaasaan aniga meelahaas igula qabanaa lahayd waa mahadsantiin aada u mahadsan tahay gudoomiye taariikh waxaana siisay qurux badan si fiicanna actually usoo dhiraandhirisay marka su-aashayda koowaad waxa waaye dowladda soomaaliya marka laga soo tago tabashooyinka ay qabeen maamulkan muuse biixi hadda uu madaxweynaha u yahay ee somaliland la baxay tabashooyinkii iyo maamuladii ka horreeyayba ay qabeen markii laga soo reebo oo madaxweynuhuna saa hadda sheegtay uu yiri dee annaga tabashadiina waxaan rabnaa inaan si xal lagu raadinayo aan ku xalino aan ahayn qasab markii laga soo tago maxaa dowladda soomaaliya ka hortaagan ileen waa ayada territorygeedii dowladda soomaaliya ay hoos yimaadaan maamul goboleedyada dalka ka dhisan oo dhan hadduu yahay mid dhahay anigu waa go'ayaa iyo midaan dhahayn waa go'ayaa mid walbaahay dowladda soomaaliya doorkeedu ma wuxuu ku eg yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamza inay war-saxaafadeed ama masaajid uu ka qudbeeya madaxweynaha uu kusoo qaato oo xataa uusan dikireeto soo saarin mase tallaabooyin baa jira uu qaadi karo oo awooddeeda uu leeyahay uu ka qaadi karo xaaladda taagan haddii xataa ay dhacday mar iyo laba inuu hadlay mar saddexaad iyo mar afraad ma hadal buu inay ahayd inuu ku ekaado mase tallaabooyin uu qaadi karay oo adigu maadaama aad siyaasi tahay dalkana ka shaqeeyey uusan qaadaynin baa jira maxaase ka hortaagan tallaabadaas inuu qaado saacadii waa mahadsan tahay horta aniga hadda dowladda uma shaqeeyo sida ay ku fakereena ma garan karo laakiin siday ku qorxoonaa laheedaan qiyaasi karaa marka dadku si dadka caadiga ah siday u fakeraan iyo qofka xafiiska markaas fadhiya xaqiiqada hor taalla
markasta waa wax aad u kala duwan waxaa laga yaabaa dadku inay ku fakeraan ninkani waa madaxweyne soomaaliyeed sharciyadu haystaa awooduu haystaa muu tallaabo qaado laakiin xaqiiqada taasoo ka duwan tahay qofku markuu xafiiska uu fadhiyo soomaaliya hadda xaaladeeda ogtihiin oo baarlamaanku qabaa'il yahay waa qofka ugu fulaysan dadka qofkaas geesihiisuu maanta dhafiirinaya waxaa laga yaabaa inta hadda adiga aad sheegaysay ama dadka laascaana jooga ay qabaan inuu qabo laakiin xaaladaha dalka iyo aqladan labada aqal ee dalka iyo waxyaabahaas ilaa soomaalidu waxba xildhibaanaha ku matala magaca qabiilka tusaalaha ugu fiican waxa weeye